heshiis nabadeed ayaa laga gaadhay colaad ka jirtay aadha cadeeye gogol nabadeed oo uu dhigay Sultaan Mustafa Maxamuud Awseed laguna heshiisiinayay laba beelo walaal ah oo degan degmada aadha cadeeye ee gobolka Sool ayaa maanta la soo afjaray waxaana shirkaasi lagu qabtay magaalada Tanlaas Canood kaasoo soconayay muddo 7 ah heshiiska la kala dhex dhigay labada beelood waxa goobjoog ka ahaa isimo odayaal dhaqameedo qurba joog culimo awdiin aqoon-yahano iyo maamulka gobolka waxaana garwadeen ka ahaa gudi ka kooban labada beelood labadan beelood halka isugu yimi nabadan loo xidhayo maanta ilaahay uu u dambeysay ka waa in badan waa reerihii reer Laas Canood saldhiga u ahaa oo dadkii reer Laas Canood deegaanadiisa asalka ahaa bay ka mid yihiin oo waxa dadkii ugu ilbaxsanaa magaalada tan bay ka mid yihiin qodobadii lagu heshiiyay waxa halkaasi ka akhriyay Abshir Aadan Maxamuud oo kamid ah gudigaasi hawshaasi loo xil saaray waxaanu halkan ka cadeynaynaa maanta oo ay taariikhdu tahay waa shalay 3 bishii koowaad 2019 in aanu heshiis buuxa ka gaadhnay dhammaan wixii dib kala gaadhay labada beelood waxaana ku heshiinay qodobadan hoos ku cad number 1 dhimashada labada marxuum ee kala ah Cali Maxamuud Ismaaciil Subagle iyo Cabdilqaadir Muuse Xaaji Maxamed Dalqaf in ninkiiba laga bixiyo 100 halaad oo geel ah iyadoo loo kala bixinayo sidan hoos ku qoran in tifiyaha oo dhan ninkii 43 halaad oo dhogor ah labada nin 86 halaad lagu bixinayo muddo dhan 4 bilood oo ka bilaabanta 3 bisha koowaad 2019 kuna eeg 3 bishanaad 2019 wixii heshiiskan ka dambeeyay ee ku kala yimaada labada beelood Allah ma keenee waxa laga heshiiyay in la waaqafajiyo shariicada islaamka cidii wax dishana ay tahay qisaas haddaanu nahay beesha reer Fiqishni go'aan waxaanu ku qaadanay oo yadi iyo weyn isgaarsiinay wax kasta oo nabad lagu helayo wax kasta oo reer cilmi iyo reer Fiqishni isugu calool sabaanayaan inaanu sabayno ay beesha reer Fiqishni beesha reer cilmi maanta waa isku mid shariic islaam baan ugu doonsanay wixii dhibaato oo dhexdeeda ka timaada qofka sameeyana inay gaar ku noqoto oo aan cid garab ku siisa uusan helin annagoo isku mid aanu qofka dabagal soo qabasho culayska isaga la wada saaro dhibtaas isaga gaar u noqoto si dadku yacniga wixii jiray uu dacuga leexdo uga walaaloobo maanta hadii labadii reer iyagu ay soo dhameeyeen soo ururiyeen suldaankuna hormuud ka yahay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye waana guul dhammaan guul bay inoo wada tahay iyagana guul iyo sharaf bay u tahay ilaahay baa mahadle waxaan u mahadnaqayaa suldaankii gobosha dhigay Sultaan Mustafa Maxamuud Awseed gudidii la shaqaysay labadii beelood ee aqbalay intaba marka ugu horeysa xafladani soo aftaridda nabadda labada beelood waxay ka mid ahayd colaadihii sokeeye ee gobolkan muddada dheer ka jiray bay ka mid ahayd annagu ilaahay waxaanu ka filanaynaa hawshaas inaanu sidaan u qoray odayaashii soo diyaari labada daraf u qoxeen inay u dhici doonto biidnillaahi tacaala idinkana waxaan ka baryeynaa jamacaha saacad baa ku jirta la saacatul ijaabo inaad muxuu ahaa haday qodbada ka hor iyo kadib mid ka doonto jamcuhum baa culimadii baa joogta inaad noogu soo ducaysanay ilaahay arinta fududeeyo nad gudbisaan yani heshiiska meesha ka dhacay meel dheer iyo meel dhow aad gaarsiisaan waliba aad ku dayataan dadka u gudbisaan inay ku daydaan waxa weeye gobolkan Sool wuu ka haray Soomaaliya qaybaheeda meel walba ay joogtay qaybaheeda wuu ka haray Soomaaliya meel alla meesha dad Soomaaliya joogaan ba gobol kasta ay ku nool yihiin wuu ka haray inta anigu waxaan ka shaqeynay in Fiqishni iyo reer cilmi ilaahay heshiisiyo anigu waa ka shaqeeyay walaadaan ugu yeeray alla bari baan dhigay ilaahay waxaan ka bariyay in ilaahay labada reer heshiisiyo reer cilmi iyo Fiqishni waa ogyahay in anigu dadka heshiiska ka gooni ahaa horta waa ogyahay imikana arinta ilaahay aan ugu shukrinaqayaa waa ku mahadnaqayaa oo aynu maanta inteenaasi goobjoog ka nahay oo ka qayb galay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa marka ugu horeysa waxaan ugu mahadnaqaynaa Sultaan Mustafa Maxamuud Awseed oo gogosha nabadda afidiyay aniga iyo raggii arintan ka shaqeynayayba labadiina qolaba waa idinku wacd xidhaynaa inaad hawshaas nala fulisaan annaguna garbihiinaan taaganna wacdna waxaan idinka dhigaynaa hawshaas inaad fulisaan oo aad ka dhabaysaan heshiiskaas
nabadda aad qaadateen iyo xaqa la isku leeyahay inaynu iska bixinno ayaanu mataqaanaa aan idinka rabnaa annaguna waa idin garab taaganahay insha shirkaasi markii uu soo dhammaaday guddigu waxay u ambabixeen magaalada Adhe Cadeeye waxayna socod ku mareen dariiqyada magaaladaasi waxaana halkaasi ka hadlay boqor Khadar Cali Jaamac oo ka sheekeeyay ahmiyadda nabadu leedahay maanta waxaanu halkan ugu soo baxnay degmada Adhe Cadeeye nabadgelyadii la qaatay ee gobolka Sool lagu kala saxeexday ee bayaanka laga soo saaray in aanu la nimaadno deegaankii iyo degmadii Adhe Cadeeye hadday tahay odayaasha wixii halka joogay hadday tahay haweenkii hadday tahay carruurtii hadday tahay reer baadiyihii maanta Adhe Cadeeye haddaad maqli jirteen colaad baa ka jirtay waa baxday ilaahay baa colaaddii saaray oo nabadgelyo inoogu bedelay dambeyntii waxaa shirkaasi nabadeed hadal ka soo jeediyey Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo gogosha nabadeed dhigay reer Adhe Cadeeye waa soo baxdeen khayr Allah idin siiyo dadkii aad dirsateen nabad bay idin sidaan idinkuna waa nala qaateen Soomaha Faarax Maxamuud Dubad Goobjoog Laascaanood